safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalintii shalay socdaal ku yimid magaalada Hargeysa waxaana la filayaa in uu maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulan la yeesho inkastoo Danjire Donald Yamamoto oo aan socdaalkiisa war rasmi ah laga soo saarin haddana waxaa la sheegay in socdaalkiisu la xiriiro arrimaha doorashooyinka Somaliland oo ay caqabado soo wajaheen iyo dib u bilaabista wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya geesta kale safiirka Ingiriiska u qaabilsan isna Soomaaliya Danjire Ben Fernor iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa isna maanta socdaal ku imanaya magaalada Hargeysa waxaanay wararku sheegayaan in safiirku uu u socdo arrimaha doorashooyinka Somaliland waxaanu kulan la yeelan doonaa madaxweyne Muuse Biixi macada in socdaalka safiiradan oo uu fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ay xiriirsan yihiin iyo in kale laakiin dadka diblomaasiyadda falanqeeya ayaa aaminsan in socdaalka diblomaasiyiintu yahay mid xiriirsan waxaanay u socdaan in ay madaxda siyaasadeed ee Somaliland culays ku saaraan sidii loogu gudbi lahaa khilaafaadka guddiga doorashooyinka iyo waliba sidii loogu howlgeli lahaa doorashooyinka sanadkan 2020 haday noqoto tan wakiilada iyo tan deegaankaba waxa kale oo ay u socdaan diblomaasiyiintani sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii Somaliland iyo Soomaaliya diblomaasi la socda arrimaha Somaliland iyo dalalka reer galbeedka oo u waramay wargeyska geeska Afrika balse ka cudur daartay in magaciisa la sheego ayaa yiri safaradan badan ee diblomaasiyiinta reer galbeedka ah ee maalmahan ku imanaya magaalada Hargeysa xilli wadanka ay ka jiraan khilaafyo siyaasadeed oo u dhaxeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah waxa ay tilmaamaysaa warwar iyo cabsi ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan xagga doorashooyinka iyo xagaldac ku iman kara geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Somaliland ugu dambeyntii socdaalada safiiradan ayaa waxay imanayaan xilli doorashooyinka ku qorshaysan waqtigoodii sharcigu jiitay si ahsami ah loogu diyaar garoobayo dalalka Somaliland la jaarka ah ee Itoobiya iyo Soomaaliya